weli ma kugu dhacday in aad gabar isbarataan kadibna marka aad sheekaysataan ma kugu dhahday waan ku jeclaaday ama waan ku jeclahay waxaa tahay qofkii ugu habboonaa iyo erayo xiiso in gabartaas ku hayso muujinaya weliba idinka oo waqti badan is aqoonin adna gabadha ma ka heshay mana isku dayday in aad gabartaas u muujiso xiisaha ay ku hayso oo kale si aad u qanciso ma siisay waqti badan danayn badan xiiso xad dhaaf ah balse muddo yar kadib ma aragtay gabartii oo aan taleefanka kaa qabanin kaa xiiso dhacday haddii aysan bokaa tegin waana meesha wiilal badan ay ku fashilmaan waxaan ula jeedaa qancinta dumarka gabadhu way kaa heshay adna waxaad isku dayday in aad u muujiso inaad adiguna ka heshay balse markii aad intaas u samaysay way kaa tagtay qaladku iyada ma ahan ee waa adiga oo aan fahansanin female nature-ka dabciga dumarka inaad isku daydo inaad gabadha u muujiso xiisaha iyada kuu qabto oo kale si aad u qanciso run ahaantii ma ahan wax xun in gabadhan kaa heshay in aad u muujiso inaad adigana ka heshay balse waxaa jira waddo wanaagsan ee aad ugu muujin karto in aad adiguna ka heshay midaas oo xiriirkeenna wax yeelaynaynin ama dhibaato u geysanayn laakiin waxaad iska ilaalisaa waddadan oo ah inaad disho xiisihii iyo jaceylkii ay gabadha ku haysay yaa ku dhahay jaceyl uu qof kuu qabo lama dili karo haa waa la dili karaa adiga oo qofkii shalay ku jeclaa ka dhigi kara mid aan maanta wax jaceyl ah aslanba ku haynin waana waddada aan kaaga digayo waddadan waxa ay tahay qancinta dumarka inaad isku daydo gabadhii ku dhahday waan ku jeclahay inaad qanciso adiga oo samaynaya wixii ay iyada samayn lahayd sida wicitaan badan attention iyo ammaan xad dhaaf ah inaad u muujiso adiga oo isdhahaya bal gabadhan ha aragto inaad adigana u jeceshahay sida iyada ay ku jeceshay oo kale balse ay u qanacdo la soco isla marka aad intaan samayso aad isku daydo inaad gabadha qanciso waxaa gabadha galaya dareen ah inaad adiga ahaynba qofkii iyada ku habboonaa maadaama si dhaqsi ah ay kugu heshay dumarku mar walba waxay isticmaalaan qaacidada ah big fish malaayga weynna si sahlan laguma helo ilaa badweynta la taga maahine mar walba waxa ay raadiyaan waxaas ay adag tahay in la helo iyagoo u arka wax qaali ah marka adiga hadilin xiriirka hana isku dayin inaad qanciso gabadha adiga oo u maleeya inay kusii jeclaa doonto